Production, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تقايا قيمة قدرين أنت بقى مدن وحن إذن لي هي سود وهذا هلك عم نجلس عطان هي وبرت عن كلنا بره كل شيء اللو إسباق وصلت اللو هذا وصلت أنا هي ما حد أضاف فردان ضرب كذا قاعد درستين ما أنت يان استوديو كمرتقانا ما أنت ومالين جمعة ومالين أقصح لحي قفل بأوسلان يبغشكم مخيّة هي بس وحن ديك تكسر قبل صاحب كنا قالقة معلم كنا قالقة عاقل عبد فرح واكن إمير كسوغلي كسودو horta waa salaamantiin dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba adduunyada ka joogtaan waxaan idin leenahay jimco wanaagsan oo wacan si wanaagsan oo qurux badan aad horta idinka noo garab istaagteen idinka ma ogdiin laakiin xaqiiqdu waxay tahay hadii idinka ayna la garab istaagna lahayn anagu waxaan kuma dhiiranay waxaan qabanaa anagu waa service ayaan qabanaa service-kan anaga bulshooyinka ayaan u qabanaa okay bulshooyinka hadii aysan markaas la garab taagnaan lahayn oo ayna ammaan lahayn oo ayna dhiileen hore u socda qaladadkeena ayna sixi lahayn kuma dhiiraneen waxaan noqonayaa dad ismoral ah oo waxaan ka nidajo aanan sii wadin muhiimadda kuwaad marka waxay tahay idinka inaad mar walba garab taagan tihiin idinka inaad dhiirigelisaan si qurux badan oo wanaagsan oo aad u qurux badan waan idin salaamayaa waa caqilkiina idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي ومحسن يا عاقل عبد الفالح ما دام الوقت جيس قالي له وقير نجسية رن أهانتي سال إنك شاقي ولو واحد نحن كريجنا برنامج كيني ورئيسها ورئيسها هذا ينور بالعمر ربان بس أنتوا ورئيس وحن جعلنا قفل بموقيس إن أكلت عاقل عبد الفالح موقيس ومركز ده حد وكسر مقندونه لو إسباق رن أهانتي وأنا يوم هاد عندنا وانك كلي يقول لي إن القناة كان سمستو إن الحروق صعب إن أصحابته وحول بعم مشيت كريو معلوم ويديا أصحاب معه وهيساوي لها هنا خالتي وحليها فكرة كمان تعاقد صعب غير كمية يسجع يا سي تاسم وكلمة مع العلمية عقله هنا خالتي وحتى هاي من يدرك عاد وجعليه أصحاب يوحنا يكون كلام كم هنا خالتي مرة وحد أركان معنا كوميدي ذا أيوة وأمانة هنا خالتي وحتى هاي من لجنتي لأنه حتى هاي جوكر فام بروت دور والباقي رياضة ترجمة لو كلمة وحتى نك مترجم كأدك دايلوجيا إيكو هذا سي عقله كنا حنت مكين البخو نك ترجمان دايلوجيا ما كان بحنسو هذه إذا كسيس كفاهم سيسان من دايلوج عاد بحنسو horta asxaabtu waa salaamantihiin in marka labaad waxaan rabaa inaan horta shirkadeena Fanboard u mahad celino in meeshan aan taaganahay maanta iyada ayaa soo gaarsiisay magacan maanta aan leenahay iyo sumcadan aan leenahay iyo jacaylkan faraha badan aad inoo qabtaan in anaga talent aan leenahay oo talentgenaas dunida cid u bandhigtay ee ogeysiisay ee la socodsiisay ee tiri waxa jira nin yiraahdo caaqil walaga yaabaa idinka aniga meena shirkadda horta dad yaqaan way jiraan oo aqoon ilaha oo caaqil Cabdi Farax dhigi jiray laakiin sida hadda idinka aad taqaanaan iimayna aqoonin horta shirkadeena mahad balaagan ka gaar mid labaad markay noqoto dialogue ama afka Soomaaliga markii wixii luqad lagu hadlay hal bedel la yiraahdo niyahow horta arrintaasi iyada waxay u baahan tahay wax la yiraahdo cilmi badan bay u baahan tahay dadka qaarkiis way yaqaanaan oo translating marka ay noqoto turjumaan noqoto markay noqoto media ama saxaafadda markay noqoto journalismka waa hanaan badan yahay isku ma dayi kartid marka ay noqoto qof baa hadda bilmithaal ba hadlayay ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama siyaasi ha ahaado ama qof shakhsi caadi markaasiba dhibaato soo gaadha ahaado luqad kale uu ku hadlay waxa markaas damacsan af Soomaali u bedesho qofkii wixii uu yiri oo dhan totalement ma keeni kadib oo ma wada bedeli kadib laakiin waxay noqonaysaa horta in muhiimadda laga soo qaato taas waa markii journalism dhankan marka turjumaada la yiraahdana waxa jirta qofkan isku luqad ma nihin isku alfaad ma nihin isku xarfan ma nihin waxa laga yaabaa in qofkan marka uu hadlayo oo luqadu ku hadlayo bilmithaal ba hadalku uu ku hadlay inuu aad iyo aad u dheeriyahay laga yaabaa Soomaalihan marka la yiraahdo waxa loo maceeyana Soomaaligu ay noqonayaan wax yar oo kooban intaas uu daldalay ninkaasi oo halka tirada badan ee afkiisa ka baxay dhaqaaq badan uu sameeyay in muhiimadda la soo in yar oo Soomaali uu ku filan yahay oo macnaha markay noqoto mararka qaarna waxay noqonaysaa laba eray oo luqadiisa ku yiri waxa suurtagal in marka la yiraahdo labada eray ama labada dhaqdhaqaaq ee uu sameeyay xarakaada afka Soomaaliga loo bedelo la yiraahdo ay noqon karto in wax badan jumlad dheer ay kugu noqonayso waxaan ku fahmi karaa Soomaaliga iyo macnaha lahjada kale inaysan marba isla ekaan karin mar waxa badan kara lahjada kale marna Soomaaliga badan ku hadla oo laba kalmo marna Soomaaliga markaas oo kale waxay noqonaysaa in inta ugu muhiimsan laga soo qaato hadalka la soo gaabiyo
abbreviation wax la yiraahdo Ingiriiska leeyahay waa taqaana waa la soo gaabiya oo af Soomaaliga la soo gaabiyo bil mithal bal yiraahdo suuqan taga waa soo adigana waa soo noqon in la yiraahdo laakiin ninkaas markuu hadlay ay ku jirtay suuqan taga shopping sameysana mina hadalkiisa ay ku jirtay laakiin hadalkiisa wax yar waa suuqan taga shopping sameysana tukaa heblo Mareykanka uu aad u dheera laakiin Soomaaliga uu noqonay suuqan taga waa soo adigana waa soo noqon kaliya uu ku fariisanayo marka taas oo qaabkaas loo isticmaalo markay noqoto dee Soomaaligu laftiisa uu lahjada badan yahay Soomaaliga lafteeda kasto Soomaali la wada yahay oo dee Soomaali la wada fahmayo haddana waxaa dareemi karaa in Soomaalidu lafteedu ay lahjada kala leedahay oo la fahmi karo qofka markuu hadlaba in just la oran karo qofkan yahow deegaan hebel biyuu ka soo jeedaa sax lahjada waxa lagu fahmaa macnaha deegaanada qofku ka soo kala jeedo inkastoo ay jirto hadda banaadir oo kale marka la gobolka banaadir oo kale marka la de banaadir isagu lahjadiisu waa banaadir bay noqonaysaa inkastoo banaadirga laftiisa xitaa laba loo sii kala qaado midabade hadda original banaadir marka la yiraahdo dadka de reexa markii originalka meeshan joogi jiray lahjad bay ku hadlaan sax si fiican u gooniyay leeyihiin la fahmi karo oo de af Soomaaliga kala xogaa ka jilicsan oo aan isdhibaynin oo isli badan aan lahayn dadka gobolka banaadir jooga laftooda af Soomaaligoodu ilaa waa magaaladii dadka dhan baa imaanaya Soomaaliga dhan baa imaanaysa waxaa marka dhacaysa in qofkaas af Soomaaligiisa uu iska yahay mutawasit oo qof markuu hadlo uu fahmi karo sax qofka banaadir markii aad damacdid inaad Soomaaliga bil mithal bade gobol oo kale aad af Soomaali gobol oo kale aad siiso wiilka banaadiriga ee markaas hadlaya waxa laga yaabaa in af Soomaaliga uu meeshas igu celi وحاجة واحدة كفاهم وين أريجاس محل جوّا إنه كله أكل وهو ما نيسا لأنه مركز هذا حدود هذه نيسا أريج لما معنا أو مركز ده وفهمي كرو ندوج بيسد يكون قص بيسد ما شاء الله أنت سيدا أنا ولا شاف سيد أنا جانا جانا إلى مكان شاف في مدة كلو أقويدنا عاقل ومركي فن لو أنا محل هاي فن كان قيبان كجرنا أوكي ده ترجمة مركي لو هرتا ورياش أنا أي اسمه شقة مني واحد ليه كرا حتى شقة ضد تاني إن بدنا صوته شقة ضد ومعناها ورد وصقري ومعناها حل جديد لكن أنا جو واحد على غير بقى قفك أنا مركز عن جلنا إن الإسكوت كيسين عاقلة وحق قبسنا سمرك خارج سويتي أديكوا شقة وحقول لك أدو فحسن كي ما ذي شقة مركز إباته وكل بالله وضع بقفك أديك أهل سفينك إستجوا قيلنا عبادة أم قوينا مرك خارج وحد عكرتا أديكوا كل جاجا عريسان أم نرفع كسوق عليه وآدم فرفرنين ما كيش خد ما تنقفك وهذا يسويها خف فرد وطلع عدينا قصله عقل مقصة ما يسأل بتريقة والله يرتوح هو شقدا وصل الشيء أقول لك مؤمن لو وهو وضعية بدن بالله هاي وضعية بدن بالله وضعية ذا سوى حكم إذا ساكي إن أديكوا فرح سنة صوب الشيء وعتمد جستي إن qofka hadii say taasi u taalo oo de baroon diiq ay ku taalo naagti markaasi adiga marwada ku hayay filimka aad wada jilaysay la dilay oo kale gabadhaadii ay saameyn just inaad oysid wad ku qasban tahay just marka qaar markaas oo kale emotionally marka wax isdiidaya dareenka filimka laga rabo iyo dareenka adiga aad ku jirto marxaladda aad ku sugnayd way isdiidi karaan just dadka waxay ku dhahayaan marka ninkan waa qoslooya adiga ma qoslaysid ninkan waa oohinaya adiga oohintii ma laga aniga just de meelaha oohintii waxay ku imaan kartaa emotional dareen marka qaar marka fursad horta ku saameysa adigoo faraxsan in qof faraxsan maanta lagu dhiibo oo kale just qaar marka dadka dhalinyarada waxay ku dhahay wallahi filimkaas waa ka baxsatay de filimkaas doorka uu qofka jilaayay baa laga yaabaa inuu faraxsana adigana aad faraxsanay sax isku door aad noqoteen midna waxa laga yaabaa qofka inuu xanaaqsanayo adigana xanaaq aad subaxa shaqo ku soo gashay just lagu dhiibo qof xanaaqsan wax qarbudaya inta badan laakiin badanaa dhibaatada loo ka dhacdo waxa waaye cilada ugu dhalinyarada aniga ay weydiiyaan waxa kamid ah waxa waaye imir nin dhib badan waa ninka igu saameynta badnaada Soomaalida ee ugu yaraan taqriiban musalsalkaasi xaqadiisa 70 iyo dhowr sano maraynayo indama karasabda mina ninkaas de characterkiisa wuxuu ku jilaayay de character xogaa nin adagoo xirxiran uu ku jilaayay badana marka rag iyo dumar marka qaar marka daan ila hadlaan ila xiriirayaan kale just saameyn badan oo ku yeeshay waxaan dareemi karaa marka ninkaas dadkii ku tixnaa musalsalkaas in xitaa marka ila hadlaya xogaa ay baqaan isdhahan ninkan ama sida ninka kale u xirxiran yahay أنا وايد تقانا أنا كمان نقطة فيني كدور كيجا إن رجع جلدي عشان حاجة ولا ما تصو وزي ما كان نقطة investigation بارتانو كلاي عسكري وكلاي نحن هذا بقى كلام كلي هذا إحنا لأنه نيجا عاطل بالأسرع حاجة كوفي عنه هلو بيجو أي شيء كتير هذا بس ما كان ما دام أنا قدرت كيجو برتين قف هذا بقى حاجة إن حدث توسو يا هذا كحيوان جحين بدن أقولين بس ما كسامين عادي أقول شيء ما كان يلي حرير يسو وهذا قف كيو بقى لكن عند بيعدي درس نجا ميه قف منها حرام ودي قلب سون وضد كدبه منها بعد مدة كاركتر كفيل كي كاركتر كي عادي إن ده حاجة اسمه قسين عشان فرق بدنا يجي جرته
been waxa aqlo markii dhanka emailka soo gali aan ka soo gudubno horta doorar kale oo aad ka ciyaartaa jirto waxa la dhahay horta dadka hadii kugu barteen door qabiida laada qamarji shirkadda in badan way kugu barteen laakiin doorar kale waxa jira aajirso sida macnaha waxa la dhahay odayo kale iyo macnaha nin waxa la dhahay taariikh ka sheekeynayo kale run ahaanti filimkii waxa la KGF waxaad u hadlaysay odayga filimka dhan isku xiray ee ka sheekeynayay taariikhda actorkaas ka sheekeynaya sax waa wallahi horta filimkaas macnaha waa ogeydo wuxuu qaatay marina laba maalin kulli aad ugu qaatay filimkaas uu dheeraa hadalkiisana ma KGF laba maalin ugu qaatay KGF hal maalin ugu qaatay oo waxay filimkaas gabagabeynay filimkaas حتى ما الفيلم معناته بالود استعمالها ما واحد صوصتا فيلم كده كده هبيه ولا هاين حتى هذا هذيك الجورنا حليده معناها مشاكل قادنا يكونوا كو ادنا عادي marka filimkaas wallahi niyo ninkaas kor hadal badan buu lahaa meelaha wallahi filimkaas meelaha dadka markay daawadeen xaqiiqdii Muqdisho kaliya ma ahan magaalada Muqdisho oo filimka kor baxay la socotid way daawadaan kadib buu horta u gaaraa gobolada iyo gaaraa kadib waxa la saaraa seertarka iyo kala saaraa uu sii gudba laakiin dadka markay daawadeen wallahi aad bay horta ugu hambaliyeen dhalinyaro badan waxyaabaha kamid ka ah filimka ku jira waxa kamid ah dad badan ay weydiiyaan oo dhalinyaradu ay ugu xasuustaan waxay dhahaan iyo 10 jir kooyo 10 kun oo rubi loo diray kadib iyo kurba ka badan ay jirto way dhahaan dialogue-kaas way dhahaan way weydiiyaan waxay dhahaan iyo warunde hadalku ku jirto way isninkan way u dirtay lacagta waa loo diray in lagu daweeyo maamada yaash waa loo diray atorahaas oo yaraa hooyada lacagta lagu daweynaa keen kale sax uu baxay marka dadkii lacagtii buu raadinayay sax wada dareemi kartaa markaas marxaladda uu ku sugnaa ka sheekeynta yaash marka ay noqoto de markuu yaash marka hore naxariis badan buu ahaa daalogada ka mid ah yaashkii naxariista yaashki marka hore wax badan buu minaha ahanin asxaan badan laakiin marka dambe wuxuu isku bedelo marka dambe uu gudaha galay qaybta macnaha qodista sax waa uu bilaabayo odaga markii meesha uu arkay diinta in la gudbaayo diinta loo diido odagii oo la dilo buu gudaha galaya waxa ka dadkan si u dhibaataysan yihiin وطبعاً فيلم كاس كلها بالكيسة وحواي سامين بدن والله يقولها عنيقة لفتي والله بدي مدة ما أنا دعوة إنه وقت وصباح اللي بيكون يوسيدير يتوان كي إني بقى مالين أيام سجال يتوان كي بقى مالين أيام هابيلو ديسي لكن أنا ما بدعوة من بوقت كاس إن لابد يكون يلا بعد 2020 بندعوة لما تقدر بدنا يودين فما يشي كده إنه إحنا فيلم كاس عن ربع فيلم كيسيدي ما تقول دعوة أو مرة ما دعوة دعوة لو تكلم فيلم كمان يتوجه جنون ما دعوة بدنا وفرصة أمي هلا بقى والله إني أورتا واسح كرهذا مركي النقطة وما الدورياش تلفت هذا مركي النقطة وما تعرف إيش كنت مركي بتكون حيرانية وتكون في حمتها هاي وتعليق النوع عاصو حالات حوا وحالي هذا إن هذا كهبوا ويده هم تكون وينكم ماسين بين ما تعاقلوا تاس مركي لو نك ورياش مركي لو صحافة لسافة وبحث مرة خاطر على يسوي دي وحيد يعني كاس مركي سهري مو صحافي أها والله إني أورتا صحافة ده أورتا حاول تسكت جورناليزم ودي وميدي وجود جرا لكن أنا مركي يرى حقيقة كان كشكينا أنا waxaan bilaabay in aan minaha dhalinyarada asxaabtayda aad u darmaan inaan kaga sheekeeyo anigu markaan yaraade waxbarashada waagaan ku jiray horta dugsiga subax horaan jiri jiray waa kasoo bixi jiray ista subaxley baan ahay iskoolka then galabtii adigu 8 saac meelaas camal waxaan tegi jiray iskool private oo markaa xisaabaadkan ku baran jirnay kadib wixii markaan kasoo baxo bilaa camal baan ahaa soo bixi jiray marka aniga banooni badanaa saas uma aadaadi jiray banooniga subaxa khamiista iyo jimcaha iska aadi jiray marka hadda soo bixi idaacadda BBC da dhageysan jiray waqtigaas marka BBC waa jiri jirtay BBC da dhageysan jiray marka soo gasho BBC marka soo gasho qalbi mithaal de odayaasha ag fariisan jiray halka kor waxa laga yaabaa 20 oday inay ag fariisan odayaasha iska ag fariisan jiray waa dhageysan jiray de waxaan garanaa waqtigaas idaacadda BBC da walaal badan baa wallahi ka shaqeyn jiray waxaa kamid ah Yunus Camil baa kamid ah Absina Hadid baa kamid ah Abdullah Haji baa kamid ah Yusuf Rad baa kamid ah waxaan maleynaa sanadkii 2000 markuu xitaa Yusuf Rad ugu wareejiyay Said Ali marka dadkaas marka markay dhameeyaan 30 daqiiqo 30 minute bay idaacada ku jirtaa oo ka tirsan 30 daqiiqo markay ay dhameeyso dadka qaarkiis xaafadda hadii xitaa idaacada ay dhaafto odayaasha caaqil ah oo jiray oo soo raadin jiray ada idaacada maxay sheegtay marka 30 daqiiqo mana ribid oo jiray oo cilin jiray kulli waqti ruuxin jiray marka qaar marka xitaa dadka qaarkiis waxay isku qabsan jireen mina hebel baa la wareystay hebel halkaas muxuu ola jeeday amal siyaasiga noocaas oo kala سياسي ممكن نقول إن هذا الكدوات القورية هن كانوا سلالين على جستي ده عد كيسوا بحاجة أو كله هذا كاسم حلو جستاس وكوده أنا ممكن لي ما جلت هذا كاسم حلو أوليجي هذا أساس أوليجي سياسة طبعا كاسم تمشي مرة سوسي فعلا ولا سعودي تاسو هيك كنت مركينا نقطة قبضتي مو يرى إن مدي هنا قبضتي ما هنا كلمة كاس دورك كده بيجرتا إن برتاي إن دبلومات أو أديك جورناليزم هنا قاتي ويجرتا وصحافة كذا لكن ده أنت بدن ما هي ده إن بروفيشنال كأمر كاس كل شيء مو سهل شقوي كلام كجري إنك استوى كده أنا كان دم عن صوب على أو عن إمد جست ده أنا وحي أقانو ده أقول تدري
haddana dee kama marnaba dee waxaan waa taqaanaa filimkii weliyaa loo baahan yahay midadu wareysanaya u baxaya kale macnaha siyaasigu wareysanaya midi waaba ninka TV-ga ka hadlaya warkii baahinayay midi waaba taqaanaa dee journalist ku baday midi waa tacliiq oo xalaga filimka dhanba inuu ka sheekeyn uu leeyahay filimka bilaagiisa dhan qisadiisa laga sheekeynayo si fiican waka run ahaanti maasha allah aqal oo aad iyo aad u mahadsan tahay maadaama waqtigaaga qaaliga ah qayb laga siisay run ahaanti taariikhdaada ma ahan midaan daqiiqado kusoo koobi karno taariikhdaada waxay u baahan tahay inaan waqti fiican wallaahi laakiin waxaan jeclaan inaan taariikhdaada naftirkeeda inaan baarti ka dhigno run ahaanti baarti kuwaad waxaan jeclahay inaan kusoo gunaano wallahi baartiga waxaan kusoo gunaanadaynaa horta asxaabta anaga horta ninkan low isbaag leeyahay Cabdullaahi Axmed waa saaxiibkay qaaliya laftiisu waxa uu talooyin badan buu siiyaa waa dad horta marka wada tashaan uu fikir dhashaa wada tashi kadib uu fikir yimaada waa wada tashanay in janaalkan la sameeyo la asaaso waxa wada hadalnay janaalkii uu bilaabay aniga marka waad garanaysaan dhalinyaradeenna intiina badan waxaan maleynayaa in aan horta codkayga marka ugu horreysay aad maqashaan usan fahmi karteen aniga saxafi filmisna horad u daawan jirteen baan u maleynayaa oo inaan taariikhaha hindiga muddo badan ka sheekeyn inkastoo janaalkaas markii dambe la xiray oo istiraatiiji badan ay ku dhaceen marka YouTube-ka marka muddo aan ku soo jiray YouTube-ka marka wuxuu u baahan yahay update wax yiraahdo u baahan yahay janaalka hadii dadkii loo furo oo de faniska loo furo la yiraahdo meeshan ayaa daawanaysaan dantu waxay qasbaysaa in de isbuuci ama ugu yaraan de daily in loo heli karo hal muuqaal wax la sameyn karo wax badanna ma ahan dhalinyarada markaas update un bay noqonayaan oo de wax badan way kugu tixmaayaan oo waxay fahmayaan janaalka inuu shaqeynayo kuwa hore ama arkin baa kugu soo xirmay intiina ku jirtana de waxa way aad iyo aad u maasantihiin si qurux badan baad doorto nolol shaqeyseen muddadii koobneed oo janaalka furnaa waa idin mahad celinayna markay noqoto de wallahi hal midna way jirtaa oo de dhalinyarada loo baahan yahay in badan marka loo sheego like-ta lafteeda oo dhiirigelin u tahay yani maxaa la kilibka way ku kala kacaa wadarkiisa u maleynayaa heestii ay soo sameeyeen waayaha cusub waxaa ku dhacay weeraan 50k oo dislike ku dhacday heestii way dhaqaaqi way laba dhinac heestii loo qaaday madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo loo soo qaaday iyo Khayr Xasan Ali Khayr ra'iisul wasaaraha loo soo qaaday waxaa ku dhacday 60k oo dislike ma dhaqaaqi kara marka serverkan YouTube systemka wuxuu u shaqeeyaa macnaha markuu arko in kilibkii falanqeyn badan ay gudaha ku leeyahay oo comments badan oo gudaha ku leeyahay laagtiisuna ay badan tahay dhiirigelinta oo tahay waan ka helay u dhigan tahay muuqaalka la soo baahiyay ka munaaqashood iyo discussion gudaha uu ku jiro iyo codsiyadan gudaha ku jiraan kilibka serverka YouTube-ka ma celin karo ma celin karo uu wareejina uu ku qasbina inuu qof kasta oo soo gala front page uu soo dhigo markuu saa qofka YouTube soo dhigalo la hor keeno taasna waxa waa wadi qarsanayna insha Allah ta'ala hadda kadibna de wax badan baan idinka sheekeyn doonaa oo de aad qurux badan oo inaan ogeyn oo de dhalinyaradu ay u baahan tahay inay ku ogaato hanaanka turjumaada oo de horta waxay umaleeyaan shaqada inay fududahay bay umaleeyaan laakiin xaqiiqatan ma aha shaqo fudud runta marka laga hadlo waad arki doontaa qaabka badan Soomaalidu dhalinyaradu waxay dhahaan hal eray yiraahdaan barnaamij ku soo gulaado badan waxay dhahaan inuu aftahana tahay dhahaan marka aftahnimo ma jirto aftahnimada marka meesha ka timid inay kaga sheekeeyo wax taas rabaa inay ka jaayil bixiyo aftahnimo ma jirto afkan horta waa afkeeni hooyo waa afkeeni hooyo Soomaaliga aniga markii aan yaraaba horta ku talagalay in afkayga Soomaaliga ama luqadayda aniga aan u dhashay Soomaaliga in aan aniga laygu ceelin afkaaga aan afkale ka celin baa leeyahay waa la kaagoobi Soomaalidu tiraahdaa haddii aniga afkayga Soomaaliga ahaa aan ku ceel bixi waa u maleyn maayo inaan English ama Arabic ama Turki ama Hindi aan ku ceel baxay afkayga hooyo aad baan u jeclahay waana ahaa waxyaabaha badan waxaa kamid ah dhalinyaro badan baa jira wallahi xaqiiqdii maantay kuwa qurbaha iska ah luqadda Soomaaliga ay ka dhunto laajidii aan laba erayo Soomaaliya aan soo keeni karin in koreyna dhiirigelin bay u tahay wallahi dhalinyaradaas aniga laftooda waxay dhahan markaan daawan wallahi aad iyo aad wadankeena dhex geysaan bay yiraahdaan dhalinyaro badan yar ciyaar oo maanta qurba joogska laftooda way daawadaan hadda waxa loo sameeyay laftooda cartoons baa loo sameeyaa oo shaqada u sameeysa oo lagu talagalay in hanaanka luqadda Soomaaliga aysan ku lumin documentary ahaan wax naga haraya anaga oo dajiilka naga dambeeya daawan doona laakiin af Soomaali qurux badan oo habaysan oo hagaagsan oo la dhihi karo maanta ayatiin dambe dhaxal galbo noqon doona ayaa rabnaa horta inay haraan ujeedkii hadafka ugu weyn aniga ugu jiro waa sidaas dokumentigaas quruxda badan bari ka maalin buu saameyn doona la oran doona ninkaas waxaan ilaa Caaqil Cabdi Faarax deefanku ku jiray qaybta turjumaadka ku jiray hadii waxa ka tagayso waxa eraya badan aan lumi doona marka documentary ahaan xagee ku hari karaan waxay ku hari karaan iyagoo filimkan saaran hadda waartan filmadii alfaqi hore u turjumaan oo 19 turjumay ilaa maanta way yeelaan waa daawana sax anagoo ciyaar soo daawan jirnay maanta inaga ka hadlayna sax marka wax haraya oo documentary oo oolaya oo ilaa cimrinaya muddo badan oo li kara dadka markaas waxaan rabnaa in Soomaali qurux badan oo hanaan leh oo dadka ay fahmi karaan wax ku oran inaan rabno sababta waxaan idin leeyahay qaybta koowaad qaybo badan oo saaki doona ma kala xiisi doono
run ahaantii waa siduu caaqil idin sheegay laagta iyo sheerta intaba dhiirigelinaya aniga ay tahay waxaan rajeynayaa idinkana inaad dhankiina hawshiina aad ka qabsataan anigana waxaad ugu ogtihiin qof walba shaqsi walba ah oo Farmbroid ka tirsan muuqiisa inaan idin hor keeni doono weliba taariikhdiisa oo faahfaahsan inta caaqil muuqiisa hore u aragtay maanta waa kana inta aan arkinne nasiibaad u yeelataan maanta inaad janaalkayga ka daawataan marka waxaan idin leeyahay laagta dhiirigelina ii tahay sheerta sidoo kale komentiyadiina fikradaha waad igu soo gudbin kartaan anigana waxaan diyaar u ahay fikir walba idinka aad ii soo gudbisaan inaan qaato inta fikir rabta aniga inay ii soo gudbiso run ahaantii Instagram-kayga waad igu soo gudbin kartaan waa low isback Facebook-kayga sidoo kale waad igu soo gudbin kartiin inta hayso way haysaa inta aanan haynin description-ka ayaan usoo dhigi doonaa inta barnaamijkan mid aan kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo caaqil iyo bahda Farmbroid isku duuban wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh isku soo laabo